السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي والله كحلان channel كان سومالي نتوي كلاسروم كسر دواء مر لبعض يا مر صدحات واحد نو سعودي كورس كيني لما قعب حي كورس كيني لما قعب حي دياس ديجيتال سيكوريتي أي نو سعودي فيديو جو حن كجور رمينا متحنا حن كجور رمينا ار بويسن اتاك وير لا ار بويسن اتاك ايانو كجور رمينا وانا توتوريال كي افريلا تنادويان waxaan idin socodsiinayna Cabdi Xuseen Ducaale waxyaalihii aad garan weyday ama aad yar ku adkaada insha Allah commentiga ay noogu reebi haddii la nagarati waan ka soo shaqeey kala mar baan wadeeg doona waxyaalinta ka fursa weyday waxa noogu soo diri kartaa somnetclass@gmail.com oo ah gmailka ay leedahay shabakadani R Boysen attack hadan gudaha galan oo kaga waramayna tutorial keenan R Boysen attack maxaad mar walba waxa noo caadahay ya dhaqan inta aanan akhrin wax English mashquulina faan gud ka qaadano horta R Boysen laba shay ka qoobantay R waxa la iyo Boysen oo macnaheedu tahay R biga sumintiis horta teena suminta gaan aan R bislifan R biyo maxaad horta R bi waxay tahay isla garan midhow say loo sameeyay ayaan u tagdo laakiin R bislifan R bi waxa loo sameeyay horta address resolution protocol meelan ku qoro address bala eeda resolution حكا عادو قرأ R resolution تا halkaas عادو قرأ resolution ومعناه تي إيجاد resolution هي attack ما هي resolution protocol marka waxay address resolution protocol ay arbi la sugan inta marka emailiga qortay qodobka la imanna war RBO ama protocol kan la address resolution protocol horta shaqadaadu waa maxay shaqadaadu waxa weeye isaga inooga jawaabayay luqadda carab waxa lagu protocol ijaad la canaawiin alfiziyaaya oo maxay shaqadiisu waxa weeye tusaale waxa lagu fahmaayay waxa weeye waa protocolka ka mas'uulka soo helitaanka ciwaankaaga la maaka addresskaaga aan ku celiyo waa protocolka arbigu waa protocolka ka mas'uulka soo helitaankaaga ciwaankaaga maak address IP address ma waa maak address ku sayra tusaale halkan ilaag halka waxa noo yaalo computer 1 halkan waxa noo yaalo PC2 computer 1 oo PC1 ayaa wuxuu doonaa inuu xog u diro rabaa computer 2 horta mobile-kani computer wuxuu leeyahay IP address ku 1001 maak address-kiisuna waa maxay waxa weeyaan waa 12 aan ku celiyo waa 12 aan ku celiyo aan dib yareeyaa maak address-kiisuna waa 12 computer kan kale IP address-kiisu waa 1002 IP address-kiisuna waa 12 B weeyaan inta marka meeliga qortid ay waxaad ogsoonaata computer 1 ayaa wuxuu rabaa inuu xog u diro tusaale kale wuxuu u diro rabaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fariinta ayuu rabaa markuu rabo inuu diro ayaa waad aragtay computerkaaga ama mobile-kaagaba wuxuu leeyahay computer walba meel ku qoro wuxuu leeyahay waxa la RB cache wuxuu leeyahay RB cache buu leeyahay RB cache-ka waxa ugu kaydsan computerka ku dhagisan iyo maak address-kiisa tusaale soo kaninka computer 1 maaha xarigiisa soo xarigiisa waxa ku dhagsan computer 2 ciwaankiisa maxay waa 1002 iyo IP address iyo maak address-kuna waka RB cache-ka ama table-ka soo sameeysanaya uu leeyahay IP address-ka computer-kan ku dhagsanaya iyo maak address-kiisa marka qodobka u fiirso qodobkaasi waa muhiim IP address-ka halka ku yaala iyo maak address-ka waxa iskala computer 2 baa iskala de soo ma hade computer 2 wuxuu leeyahay isaguna table buu leeyahay isaguna wuxuu leeyahay table kana waxa ugu jira 1001 oo iyo 12 oo yaa iskala computer marka qaacido kaas computer walba wuxuu hayaa computerka kale IP address-kiisa maak address-kiisa ayintu isku meel dhigo ayuu wuxuu ka dhigayaa table buu ka sameeyaa RB cache table RB cache table kana uu leeyahay computerka kale RB cache uu leeyahay هذا واحد سؤاله ميل قدم كاكواي
horta waa la xifdii karayaa soo maaha IP addresska computerka la wada ogaan karaysa computerka kale iminka tusaale computer 1 inuu ogaado computerka ka xidhan IP addresskiisa aad buu fudud yahay laakiin waxa adag MAC addressku leeyahay computerka kale inuu ogaado isla sidoo kale computer 2 waa uu fudud inuu helo computerkan kale soo eegaya IP addresskiisa laakiin waxa ku adag MAC addresskiisa waxa su'aala macaan waxa ma karaysaa seel loo xifdii karin waa 12 biya ana 12 biya ka dhigay laakiin marka nolosha caadiga xuruf iyo number buu MAC addresska ka koobnaanay oo way adag meel ku qoro computerka kale IP addresskiisa waa heli karaya adiga ma xifdii karay shakhsiyan laakiin waxa adag MAC addresskiisa inaad ogaato haddaba waxa su'aala computer 1 oo kana ma ku rabo inuu computer 2 diro wuxuu u baahan yahay IP addresskiisa iyo MAC addresskiisa waxaana digu tiri IP addresskiisa uu heli karay laakiin MAC addresskiisa ma heli karay oo yaa soo heli waa su'aal haddii IP addresskiisa heli karayo MAC addresskiisa aan heli karay labadooda in la helaana ay daruur tahay sidee loo soo heli karaya si loo soo helo waxa inoo qabanaya protocol kan la yiraahdo RB oo ku sheegan ku lahaa ani midhood ku lahaa protocolka muhiimadiisa waxa weeye soo helitaanka ciwaanka MAC addresska qodobka marka meel ku qoratid ayaan isla fahmayna RBOSing address registration protocol waa protocolka ka mas'uulka ah inuu computer A ama computer 1 u soo helo computer 2 MAC addresskiisa maadaama uu yahay IP addresskiisa sidoo kale RB address registration protocol waa protocolka ka mas'uulka inuu computer 2 u soo helo MAC addressku leeyahay computer 1 maadaama IP addresskiisa uu heli karayo si uu helo protocolkan ayaa shaqeynaya protocolkan waxa su'aala protocolka meelaha ka mas'uulo oranaya ka shaqeysinimay si automatically isaga baadid goobaya si aad uga bogatina fiidiyoodii ka horeeyay ama taxanaad technology aan RB ka dhaxlaysa ama marka si guud ahaan imkata dad ka faantay alxamdulillah animan hada RBOSing animan maadaama RB isla fahnay RB-gu muxuu ahaa waa protocolka ka mas'uulka soo helitaanka ciwaanka MAC addresska uu leeyahay computer ama uu leeyahay qalabyada kamid ah haddaan iska masaxno RB-ga hado RB horta qodobka meena sila qornay RBOSing haddaad aragtid iyo RB spoofing RBOSing haddaad aragtid iyo RB spoofing iyo RB cache boising intaasoo dhan waa isku wada macno way same hado RBOSing waxay tahay RB silifana waa protocolka ka mas'uulka soo helitaanka ciwaanka MAC addresska RB spoofing waxay noqonaysaa sumaynta ciwaanka soo helaya waa spoofing baa ila yes boising waa isku macnee soo garamaysid spoof waxa weeye waa matalaad iska dhigida haddaan marka RBOSing macno waxa weeyaan sumaynta ciwaanka soo helaya MAC addresska haddana RB spoofing oo dhanna waa iska dhigida ama matalaada ciwaanka soo helaya address registration protocolka balse u dhacaysa waxa u dhacaysa horta waxa silariska ku yeeladaan akhrino weerarkani ana attack weerarkani dadkaas reverse wuxuu noqonayaa to boising il la sumeeyo the MAC table maaha RB table MAC maaha waa RB tableki ama address registration protocolku tableku sameeysanaya in la sumeeyo weeye yaa sumeynaya hacker ka sumeynaya oo sidoo sumeynaya weerjinti wax bedelaya oo ama wax ku daraya table ka sameeysan imika sida saxda u sameeysan imika computer 1 si saxan ayuu wuxuu ku hayaa MAC addressku IP addressku leeyahay computer 2 iyo IP addressku leeyahay computer 2 iyo MAC addressku leeyahay computer 2 labadiiba sax abuu hayaa halka computer 2na uu hayo IP addressku leeyahay computer oo saxsan iyo MAC addresskiisii oo saxsan هذا أربع سحويين تيبل كم بحال لقى بدلي أما واحد ما لقوا صوت درجة وسود عيسى وفيرسو سود عيسى حوي مركورو حنو يالي هاكو حنو يالا كمبيوتر 1 هاكنو حنو يالا كمبيوتر 2 كمبيوتر 1 وحو هاي كمبيوتر 1 وكان وحو هاي تيبل كيسو وحو كان وها أرب كاش تيبل لا يدعو أدرس ريشون بروتوكول تيبل كوسمنا لاد RB cache table baa la meel marka RB cache table waxa ku jiray IP address iyo MAC address ku leeyahay computer 2 si marka hore kaaga muuqatay soo markeen marka ka taagantay haddii muxuu sameeyay MAC IP address computer 1 IP address ka uu hayo uu leeyahay computer 2 laakiin u fiirso laakiin ma hayo
ib mac addressku lahaa mac addressku lahaa ayo mac addressku lahaa computer 2 oo mac address computer lahaa muxuu b ayuha laakiin maxaa lagu bedelay y marka maxaa lagu sameeyey rb cache table-kii ayaa wax isbedel lagu sameeyey oo maxaa lagu bedelay hackerkan baa gudahooda soo dhex galay iyagoon danaysanayno wuxuu ku bedelay mac addressku computerkiisu leeyahay hackerkan computerkan uu isticmaalayo mac addresskiisu waa ka bedel oo maxay u taraysaa waxay u taraysaa mar dhow marka computer 1 oo kan ah marka uu rabo inuu xoog u diro computer 2 wuxuu hayaan soomaha baalkiisa isheeg wuxuu hayaan maxay isheeg wuxuu hayaa ib addresskiisa waxaa ka maqan mac addresskiisa baadi goobi jira address resolution protocolku mar dhow marka la baadi goobo in la eego waxaa la eegayaa tablekii baa la eegaya marka tablekii la eego adayda waxaa loo dirayaa fariinta waxaa loo wadaa fariinta waxaa loo wadaa 10002 mac addresskiisa looga waxaba fadhiya y oo ah computerku leeyahay computerka ayaa leeyahay mac address uu leeyahay hacker isla fariintii loo waday bc2 halkaas khalad ka gaaraya oo u tagmis oo ay fariintu tagi waxa u tagi doontaa hackerki ayaa fariintii helaya isaga marka laba midkood baa la gudboon hadduu is leeyahay computer 1 waa dareemi doonaa in xogtaadii madhamka computer 1 la hadla computer 2 oo yiraahdo war xogtii ma soo dirtay waan ku soo diray ma aragtay uu yiraahmay wuxuu is leeyahay hackerku waa gufay sida dadinta xogtiintu akhriyo ama wax ka bedelo ama wax ka reebay isku diray ama wuxuu doono ku sameeyo ayuu si dhaafinaya ama bay soo dhaafinayay xogtii laftigeeda intuu bedelo ayuu xog kale oo been ah u diri karay faham guud mar aan ku celino faham guud horta arbigu waxa uu address resolution protocol waa protocolka ka mas'uulka soo helitaanka ciwaanka mac address ciwaanka protocolka address resolution protocol wuxuu sameeyaa table buu sameeyaa table-kaas sameyntiisa ama wax ka bedelkiisa ama wax ku darkiisa ama wax kareebisiisa ayaa la address poison sumaynta address rb poison baa la yiraahdaa oo sida uu adeerta table-kii dhanaa oo sida ahaa ma koorsaas oo soo maade ma koorsaas ku saxsana oo waxa la hayay ib addresska iyo mac addresska soo islahan oo labadaba yaa lahaa labadaba waxa iska lahaa labadaba waxa iska lahaa computer 2 kana waa saxsanaayo yaa iska lahaa table kana waxa jira ciwaanka mac addresska iska lahaa laakiin waxa lagu soo wala suudaariyo hakiinka marka waxa ka lagu bedelay halka bb da iska lahayd Soomaad bb da ku saxsanay Soomaad mac address ku computer 2 oo maxaa lagu bedelay mac address ku leeyahay hacker taas awood wuxuu yeelaya xog wal oo computer 1 soo dirayo inay sii marto ama uu arko hacker waxa su'aala rb poison attacks dhowr si ay u dhacaysa garanaysa in soo dhacdo laakiin dhowr si ay u dhici karaysa ama dhowr shay baa ka dhalan karaya waxa ka dhalan karaya man in the middle attack ayaa ka dhalanaya weerar la man in the middle attack iyo waxa kana diin laf series wax reeyla iyo session hijack bal mideen dirsan man in the middle attack baa ka dhalanaya waxa ka dhigantay hacker ba dhexdooda fadhiisanayo awood wuxuu yeelanaya hackerkani inuu wuxuu eego soo ma hadda waxa ka dhalan karaya arbiga inuu ahaa ka dhexdooda dhex fadhiiso oo man in the middle asharaanta soo socda kaga waram doonaa meel socda inuu kaliya dhex fadhiiso labada computer ayaa dhici karaysa waxa dhici karaysa diin laf service waxyaalaha ka dhalanay weeyaan weerarka waxa ka dhalan karaya tiko inuu nin dhexdooda dhex fadhiiso xogta isku direeyeen uu muraaqabay uu ka warhayo waxa kale ka dhalan karaya diin laf service oo macnaheedu tahay inuu computer 2gani waxa jira hackerkan inuu diidada computer waa inuu xog boodiro oo adeegay isku dirdirayeen inuu dhexdooda darbi dhaxdhigo oo waxba isku diri waayaan meelaha oo computer 2 wuxuu ku sameeynaya ba fiirso ila computer 2 buu xumeeyay table-kiisi arbikashki table-kiisi computer 2 uu ka bedeli karaya wuxuu xumeyn karaya arbikashku leeyahay computer 2 oo wuxuu sameeynaya 12ka halka yaala ayuu wuxuu ku bedeli karaya weydiisa sidoo kii hore ugu xumeeyay marka waxa dhalanaysa computer 1 ma ku rabo inuu computer 2 xogta u diro hackerka ka soo dhici computer 2 ma ku rabo computer 1 xogta u diro hackerka si mari marka waxa ka dhalanaysa diin lafsas inuu adeegooda iska awdo waxa kale ka dhalanaysa session hijacking oo macnaheedu tahay qodobka saddexaad ka dhalan karaya weerar oo macnaheedu tahay in aanu soo waxba xogta bedelin oo aanu hashayna xogta computer 1 ka imanaysa
computer 2 ku socota isaga soo marta wuxuu ku sameeyaa waxba ka bedeli maayo waxana ku dari maayo wuxuu sameeyaa inuu session inuu iska daadaawado uu ka wahayo oo yiraahdo wali yabli computer 2 wuxuu diray assalaamu calaykum oo computer 2 wuxuu soo diray wa calaykum assalaam marka wuxuu sameeyaa iska daawanaya oo xogtooda inuu session waxyaalaha isku dirayeen buu muraaqabeynaya saddexda weerar bay ka dhashaan inuu dhexdoodii dhex fadhiiso waxa isku direen ka warayo inay hackerkaasi dhexdoodii uu adeegoodii ay isku dirayeen ama filmaan isku diraan mar waa isku direen dhexdoodii uu awoodeed isku dirayeen inuu waxa isku dirayeen hijacking ku sameeyo muraaqaba hijacking monitoring ku sameeyo oo waxa isku direen ka warayo ugu dambeyn sidee ayaan uga hortageynaa static arb table sidee uga hortageynaa saddex hab ayaan uga hortageynaa weerar in laga sameeyo address resolution protocol kan ka mas'uulka ah sirtaanka ciwaanka MAC addresska saddex hab ayaanu ilaalin kareen ko static arb inaan inagu table kan wani kula si automatically isaga sameeysanayso ma inaan inagu orno waryahay aan waxba inoo qabanay arb iyo badaa ka bax oo inagu static gacantan ka gelin orno computer to MAC addresski IP addresski waa 002 MAC addresski waa sida computer t MAC addresski soo sida IP addresski waa san serverka IP addresski soo san MAC addresski soo san oo inagu gacantan ka qaban hadaan gacanta inagu ka qabano cid awood ma leeyahay bedesho ina soo taa qodobka labaad aan ku ilaalin karo waxa physical security oo inagu physical security oo amniga dunida aad ilaaliso oo aad markaba iska ilaalisid in computerkaaga xarigaaga hayno soo galo ama xarig kale oo ka imanaya computeranada ku soo physical security switchkaaga computerada isku xidhayna isagana ka waray waa barta kaliya laga soo gali karaye waxaan fiidiyogan ku soo koobaya arbiga san isku la dareeno bal wani ku computer walba wuxuu leeyahay address resolution protocol arbi cache buu leeyahay sama arbi cache ka aan si protocol aan ku tuso wani kulit bahal walba computer walba wuxuu iska leeyahay wuxuu iska leeyahay table kan ayuu iska leeyahay RB cache leeyahay balan aan tagno CMD ga tagi waxaan iska xidhnaa CMD ga insha Allah tagi waxaan ku tusayaa RB cache kan wuxuu yahay baan ku tus sida way ugu digtoonaatid haye aynoo soo kaco computerka yar aad u culus oo inoo soo kaco ayaan waxaan ku tusayaa table-ka markay CMD gu ku soo kaco waxaad ku qortaa RB oo loo soo gaabi address resolution protocol -a qor -a ma qortay markaad ku dhifto waxa ku soo baxaya table kan ku shan kula IP addresska waxa ku soo baxaya saddex shay IP addressku leeyahay computerka la xidhiidho dhamaan waxa ku soo baxaya computerada iyo serverada la xidhiidhay ko iyo MAC addresskooda iyo ciwaankan sideed ku barat ma gacanta laga galiyay mise protocolka address resolution protocolka ayaa hawshan qabta balaaneego wanaga ku dhifano way noo soo baxaya table-ki haye bal table-ka ilaag haka maxaa kugu qornay internet address oo macnaheedu IP address waxaan IP address kala 192.168 oo serverka ah IP address MAC addresskiisu ay hadda darti physical address waa MAC address internet address waa IP address marka 192.168 MAC addresskiisu waxa waa B2 saas ciwaankaas ay ku bartay maana gacanta ka geliyay protocolkan la yiraahdo address resolution protocol ayaa shaqadan qabtay dynamic macnaheedu tahay protocolka adu ma gelin ismaadba marka table ka sameeysay marka rewga qoraysay adigu hawsha ma qaban baa lagu leeyahay oo yaa qabtay MAC addresska waxa yaa qabtay address resolution protocolka shaqada qabtay balka ku xigay 192.168.225 oo MAC addresskiisu yahay FF oo broadcast weeyaan ciwaanka gadaal baan ka arki doon ciwaanka maana bartay maana gacanta ka geliyay mise sagaa ismiday static ana gacanta ka geliyay meelo sota marka laba midkoodi ma noqon MAC address waxa ciwaankan magaciisa horta table-ka sawirsan waa RB cache kan ka tusay RB cache kan halka ka tusay weey RB cache kan halka ka tusay weeyaan RB cache kan halka ka tusay weey waa RB cache kan ka tusay IP address ku qoran maxay ahayd internet address baa
ila sota muxuu internet address bo halkan MAC address ka qorantayna muxuu physical address intaasaan kusoo koobayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fideoga xigeentan ku kulmi doono waxaan ku kala tegaynaa salaanta islaamka waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hana iloobina channelka subscribe dadka cusub tahay hadda la gareysinna waxba kuma dhimayso inaad la wadaagtay asxaabtaadana isku day insha Allah si asxaab badan oo adiga oo kale ay nagula soo magaranaysa insha Allah channelka nala soo wadaagaan